السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. walaalahayga muslimiinta, aniga magacayga waxaa la dhahaa Safiya. runtii xaalad ayaan shalay la kulmay, runtii aad ii xanuujisay. xaaladaas u dhicin weligay intaan noolaa, intaan soo joogay calaa kulli xaal qurbaha iyo mar lamidaba. xaaladaasaan kala kulmay qof dumar ah shalaysto tiktok anoo ku jira. runtii xanuun weyn ay igu noqotay. xanuunkaas oo ilaa shalay aan ka joogi waayay. xanuunkaas oo ahaa mar waxaan islahaata ma u istaagtaa salaada ma habaarta, marna waxaan soo xasuustaa rasuulkeennii sala allahu calayhi wasalam markii uu aaday daa'if, dacwadii ilaahay uu aaday oo nimankii daa'if joogay ay rasuulka soo dhaweyn waayeen, dumarkii caruurtii inta ku dalbaday rasuulka tuuriyeeyeen oo lugihiisii sharafta lahaa ay korkiisiiba dhiig ka keeneen, magaaladiina dhagax uga saareen. waxaa igu soo dhacday raximka iyo qaraabanimada. waxaan dareemay gabadhaas dhibaatada shalay ii geysatay raximka iyo qaraabadaan nahay. si kastaba qof kasta oo dhibka u geysta wax kasta malama jecel, wax dhibaata waxaa la jeceshaa khayrka. runtii aniga waxaan ku yiri qoftaas dumarka shalay caysay si xun iyo caysay hooyadii aabahay dhintay caysay ummadii muslimka caysay. aniga ma ogey xaalka saas inuu yahay ilaahay amarkiisa. waxay sheekada ku bilaabatay aniga waxaan iska ahaa qof jecel khayrka. halkan waxaan usoo gala khayrka, waxaan usoo gala runtii ilaahay unbaa og. waxaan usoo gala inaan sadaqada iyo maaragtay dadka masaakiinta wax uga faa'iideeya ilaahay amarkiisa. aniga tiktok waxaan usoo galay ilaahay unbaa og. marka aniga ma jecli meelaha khayrka lagu hayn. waxaan jeclaa meelaha khayrka lagu hayo inaan ka qayb qaato. wax kasta ay tahay, sadaqa hadday tahay, arrimaha bulshada hadday tahay, waana hadday tahay, wax kasta oo maaragtay ku saabsan guurka, waxyaalahaas wixii khayr oo dhan oo bulshadana u fiican aakhiradani adduunkeena. ma jecli meelaha sharta inaan fadhiisto, iska hadalka waxba nooma taraayo. marka aniga waxaa igu dhacday shalay maahan habeen hore baan malaha hadda ka hor baan walaasha wax u qorqoray. aniga beijka maba fiirin, aniga waa iska dabeecadayda qofka markii aan maaragtay la kulmo beijkiisa ama anoo meel ku jira aan soo galo assalaamu calaykum aan ku salaamaa dadka waraxmatullaahi wabarakaatu oo gaaban oo soo qoraa acda iyo sacda iyo caada iyo wa'da iyo ra'da iyo wa'da iyo ba'da oo gaaban. markasta qofka saasaan ku salaamaa. haddii markaas uu sheeko wadan waa laga yaabaa sheekadiisa wax kamid a haddaan ka gaaray inaan wax yar u qoro. markaas qofkaas haddaan la kulmo markale xasuustayda martaas waa ama wax khayr hadduu sheegay, hadduu wax khayr sheegina sometimes waa laga yaabaa inaan qofkii u qoro. ilaahay ka baq walaal, weligayna wax icaaya ma arkin. inta badan dhalinyarta xoogaa maaragtay meelaha mayga kuludka ama sacaydoo kaleeto oo u fuulaa waan waaniyaa. ilaahay ka baqa, waa xasuusiyaa ilaahay, waana u qoraa adiga qaylmiya u nooshahay ama dadkaad cayne ama waalidkaad cayne. weli wiila dhacaayay hal wiilaa ka jira, asagiina habeen uu igu qaldamay imuu garanayn qof weyn inaa ahay. wuxuu ii maleeyay dhalinyartiisii wixii uu soo galgalayay. marka aniga hadda waan iska cafiyey. anigana waan jeclaa inaan cafiyo, maxaa yeelay ma qaldamo waa allah adduunka wuxuu noo abuuray in maartaay waan qaldamaynaa. dhalinyarta qaar ku jirtan halkan dad aad u yar waa dadka intaas dadka saas u caaya ama waalidku ama meeshii hoose hooyo ama waxyaalahaas. marka aniga hadda warkay in kusoo koobo, sheekadu way dheer tahay. gabadhaas xanuun xun ii geysatay shalay, wax dhib aan u geystayna ma leh. marka ilaahay iyadan ha cafiyo. waxaan rabaa inaan cafiyo gabadhaas, qalbigaygan ilaahay iga tirtiro. walaalayaal adinkana carabiyadiina ilaaliya. naarta hal haleel waxa loogu tuuro waa carabka. rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri
rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa ii ballan qaadaa inuu ka adkaado carabkiisa iyo farjigiisa oo aan u ballan qaadaa janno. walaalayaal dadka yaanu ku dilin carabyada, dadka yaanu ku dilin carabyada. walaalayaal carabkeena aan ka adkaano, walaalayaal carabkeena aan ka adkaano, walaalayaal carabkeena aan ka adkaano. gabadhaas walaala dhibaatadaas xanuun badan ii geysatay oo shalay dhan uurka taalla igu noqotay oo la fariisan waaye. facebookaan galaa, intaan galaa, yaan ku dacweeya waxa ugu fiican oo lagu dacweeya waa allah haddaan inta saad u istaago aan gabadhaas habaaro wax faa'iido oo aniga iigu jira adduunya aakhira male. laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa, ilaahay waan u ducaynaa gabadhaas horta ilaahay inuu soo hadeeyo iyada iyo gabdhaha lamid ah, hooyooyinka lamid ah oo abaarta carabiyadooda waxyaalaha xunxun kasoo baxaya oo bulshada dhibaato u geysanayo, carabiyadii bulshada ku dilayo, oo ayaga naftooda ku dilayo, oo aakhiradooda ku dilayo. ilaahay hooyooyinka saasa oo dumarka saas waa maxay adaa og xaalkooda. hadday xanuunsan yihiin soo caafi ilaahay, hadday dhibka la haysana dhibka ka qaad ilaahay. waan u ducaynaya aniga wax dhibaato ma rabo inaan u geysto hooyooyinkaas, laakiin hooyooyinkaas ilaahay ha noo soo hadeeyo. hooyooyinkaas ee aabbayaashaas ba allah noo soo hadeeyo. walaalayaal aniga intaan hadalka duubaayo indhahayga ilin baa ka da'aysa. haddadaasaan toosay, xanuunkii aan xasuustay, waan isku qof qol kale aan geli karaba mala oon la qeybsan karo dadka waxyaala barnaamijka xanuun iyo uurka taalla igu noqotay. nolosheeda dhan way bedelantay. gabadhaasa iyo ceysay ilaahay igaga sarreey. wax xun ayay igu ceysay. hooyaday oo dhimatay afka la gashay. waxyaalaha naagaha isku cayaan iyo maaragtay dadka xunxun. aabahay oo dhintay nacalad iyo balaayo iyo hooyadaa saas iyo waxaas welina way ku jirtaa. haddayna gabadhaas iyadaa istaqaana ka dowbad keenin oo carabkeeda dadka ayna ku daynin, ilaahay wallaahi aakhiradeeda baqaaya. aniga aakhiradeeda baqaaya. muslimiin ee carabkeena ka daaya dadka. muslimiin ee carabkeena u baqa. aniga nolosheedana waa isbedeshay khalaas. markay caynaysay qolkeedaan galay meesha iyada ka hadlaysay beijka, aniga qoraal una u qoraayay. qoraaladii xataa qaar baa meel ku tuuray oo koobi garay. aniga intaan editing ku sameeyo oon soo fariisto waan hadli karaa saan u rabo, laakiin aniga ilaahay waan ka baqaaya. qof muslim waxaa ilaahay ka baqa. weligay 2018 ilaa haddaan imeedii ku jira iyadoo dhib ihaysta iyadoo dhib ihaysanba. weligay allahe qof bili aadan ma jecli inaa caloosha wax ugu qaado. dadka maaragtay xataa dadka ugu xun akhlaaqda dar waxa ugu xun oo ilaahay u nacaaladay. waxaan sameeya luuqa un galaa, waxaan dhaha hooyo ilaahay ku macnaha noloshaada bedel. waxa awood waxaan jeclaa inaan dadka waaniyo, ma jecli inaan habaaro. ilaahay inaan ku nacalad ma ku tuuro, ma caayo. qofka mu'minkana saasaa looga baahan yahay inaan ku dayan rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. marka walaalayaal iyadoo masajkan uu ka socdo ummadda soomaaliya, walaalayaal hadalkeenu wuu badan yahay. hadalka badan aan yareyno, nacalada iyo iska dayno xaasidnimada. walaalayaal diinteena iyo dalkeena oo istaagno. walaalayaal ramadaanka iyaa soo socda. walaalayaal aan isku duubnaano. wallaahi gabadhaas xanuunka ii geysatay waxaa moodaa meel inay iiga dhacday. ilaahay qalbigayga si inuu u furay si rasmi inaan dacwada u istaago hadda. walaalayaal qofna ma rabo inaan caabeeyo, magacna meelaha kama sheegayo. فهمتي إنه سيقوني وقلنا استحي وسيقوني ولا هذا. فهمت مركز كان إلهي انت كبرضا آخر دين عربية دين كيلالي النار. عربية دين النار كيلالي ولا ليال عربية دين النار كيلالي كبر ولا لا. أنا سنقانو يوكي دقن أيام بيش كذا بينو بيتقلي iyadan gabar wadaado macalimado ah ilaahay dartiis isku baranay. islax bayna naas aan iskula jirno qol whatsapp group oo hadda whatsapp iyo groupyo badan iskula soo jirnay. khayrkana islaafsano iyo wixii khayr maamadaasaan beijkeeda galamaan dhexdaas. waa gabar dhalinyaro oon dhali karo. marka waxay aan arkay beijka iyadoo kasoo duubtay iyadoo meeshaan tiktok marar kamida soo gashay riyo ay ku riyootay. waa naxay dadkan u tuur. waxay tiri meel oo maaragtay riyadaasna waa inay soo dhigaa beijkaas. iyadan waan balwaraysan doonaa.
marka dad iyadoo la cadaabayo meel lagu xiray iyaga aragti niman iyo naaga ka qaylinaya intay tiktok soo gashay ka naxda waa hadda 2022 hadda ma ahayn muddo adigu bilihii ugu horreeyay mise 23 bilihii ugu horreeyay ma aqaan beejkeeda dadkan u tubtuura qaar marka ilaahay subxaanahu watacaala intaan ka baqdaan ilaahay u toobad keeno muslimiin ay daawka ilaad anoo nafteydan ka bilaabay anigoona waqti dambe marar badan aan iska fadhiisan doonin meelaha inaan salaado u istaago ma ogaaya walaalayaal ilaahayna ku dhaarshay carabkiina iyo hadalkiina yareeya ilaahayna ku dhaarshay carabkiina iyo hadalkiina yareeya walaalayaal ilaahayna ku dhaarshay carabkiina iyo hadalkiina yareeya ilaahay u tasbiixsada laa xawla walaa quwata ilaa billah afkiina ku badaya astaghfirullahi wa atuubu ilayh afkiina ku badaya salliga nabiga afkiina ku badaya allahumma salli wa sallim calaa nabiyina maxamed wacala aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacala aali ibraahim innaka xamiidu majiid walaalayaal aakhiraan socodnaa adduunka waayaamo maxaa isugu sii daysa adduunka carabkaaga dadka waxaa ugu diraysaa muslimiinta miyaan ilaahay ku abuurin miyaana lexda lexaad ku siin miyaana indhaha ku siin miyuuna dhagaha ku siin carabka aad baadaysa isaga miyuuna ku siin maa dadka ugu diraysaa ilaahay ka baq ilaahay ka baq ilaahay ka baq dumarka iyo ragga iska hadlo ilaahay ka baq salaada u istaaga ilaahay ka baqa salaada u istaaga ilaahay ka baqa salaada u istaaga ilaahay ka baqa salaada u istaaga aniga ugu horeeya لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي وبغضتك أمان سيدتك carabkaaga iyo gacantaada iyo ishaada iyo wax kasta qofka muslimka iyo qof kasta bini-aadan ilaa ka ilaalisid waayo haddaada ilaahay uga baqan ilaahay wuu xoog badan yahay wuu quwad badan yahay daqiiqada ayuu adigana bug jijibi karaa daqiiqada ayuu wax kasta kugu samayn karaa haddaa ilaahay ku kibirtid hadda waxaa arkaya beejkayga xataa mid kusoo tuuro qur-aankaasoo ku istaagaya kaasba soomaali maadaro wuxuu ahaa ilaahay miyuuna ka baqay war ilaahay ka baqa war diinta ilaahay qabsada war xadika ilaahay qabsada war ilaahay uga baqa dadka war muslimiinta dhibaatadaas labadaas arrinaa shalay igu dhacday weli ma arkin tiktok dhibaato ka weyn oo igu dhacday shalay qofkaas kitaabka ilaahay ku joogsaday waa hore u aragnay masuuradaas waxyaalahaas qofkaas xataa intuu iisoo goliyo ilaahay baa hay caabud laa xawla walaa quwata ilaa billah intaa kuro ka cooda bilis dadkaanaba inuu sheego beejkiisa marka kaas uuba dhuuntay ilaahay unbaa wuxuu yahay ilaahay baan hadayn karo hadduuna hadalayn ilaaha ka qabto ummadda kitaabka ilaahay qur-aanka ku istaagay tan laakiin carabkeedii ayadoo ruro oo soo taaganay dadka maalin walba caynaysa dadka abaaraysa gabdhihii bay ka joogaysaa magac xun way ku qortay beejkeeda wax laga xishooda ah hooyo ah gabar ah markaa fiiriyeyna gabadhayda ugu weybaabislagiyiin beejkeeda tig ilaa xataa facebookeeda soo fiiriyey qofka walaalkaaga markaa xanuujisid ilaahay wuu kuu jeeda ilaahay waxaa moodaa shalay inuu indhaha wac iiga sii waan weli qof muslim intaan soo galay tiktok saas iigu caaya ma arag waan u fariista anigana qoraalaan u qora war aniga mayo qofkaan ka hadlaysid qof bay cayne naagtii saas ahayd oo saas ahayd oo dhilada ahayd oo tan ahayd oo kaas ahayd soo adiga mati war qof kale adigu qaldaysa aniga miihi habaryaree aan dhaha xataa waxaan ka dareemay hooyadii dhinaceeda inay maartay dhinaca puntland ka imaatay kabacdi warka waa isku dhaca aniga kacab puntland ay dhalay aniga mug sheeganaa meeshaan qabiil qof muslim ayaan ahay laakiin wallaahi xanuun xun ay gabadhaas ii geysatay shalay ilaahay ka dambi dhaafo carabkeedana dadka allah ka qabta hadday toobad leedahay gabadhaas toobad allaha siiyo allaha saaday usoo duceey walaalayaal
dumarkaan dadka caynaya ha fiirsanina, raggaan dadka caynaya ha fiirsanina, ha u camirina, ka baqa ilaahay carabiyadiina iyo indhihiina walaalayaal ha camirinina meelaha xunxun ka carara muslimiin haddaa janno rabtaan ka carara salaado istaaga war adinka maxaa ka taqaanay inuu waqtigii soo socdo war falastiin waa ujeedin dhibaatada ka socda habeenii maalin ayaa la gumaadayaa hal shilin qof uu arino soomaali ama arkin walaalayaal dadka masaakiinta wax u aruuriya oo aan isxilqaano oo sida isku dhaano oo isku duubnaano oo carabiyadiina naga ilaaliya oo dadka muslimiinta dhibaatada carabkiina dadka ku dilina oo cirdiga muslimka daaya oo dadka kale ammaan siiya oo adinka naftiina uga naxanaar war naarta way kulushaa war qof iska celin kara male subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk